السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمال كستود كسوغنتين ولا لهي سوماليات وان إنا السلامي سود دواذا مرهوري مردن بسود دواذا كلغن إذنكو ماتسان ما أنت وحنا وذا قصة waa qiso aad u cajiib badan oo aad iyo aad aan uga helay qisadan waa qiso dhacday waxaan jeclahay inaad aad u dhagaysataan qisooyinka lagu cimri qaato weeye share garan iyo like iyo subscribe inta waan laga rabaa asxaabay soo dhawaada dhageysi wanaagsan waa noo bilaabayaa qisadanay haweeney ayaa waxay haysaa 4 cunug oo yar 4 cunug ee yar agooma way aabahooda wuu ka dhintay waxay damacday si ay dhaxdo u xirato ilmaheeda ugu shaqaysato markuu ilmihii aabahooda ka dhintay ilmahana 4 cunug waayay aabahana marka 4 sano ayuu ka xabaalnaa museyga 4 sano ayuu dhinaa macnaha intay ilmaha 4 sano ayuu dhintay museyga markay ka soo 4 sano ka soo wareegatay museygeeda dhimashadiisa 4 sano ka soo wareegatay ciyaalkana 4 cunug bay ahaayeen maxay aheeday ilmihii bay damacdaa bartiisay dhaxdo u xirato oo maxay aheeday ay u korsato maxay aheeday ilmihii markay habartii iyadoo u shaqaynayso wax kale oo dhaqaalana ma ay haysanin ilmaha iskuulkoodii iyo noloshoodii iyo radbaxoodii iyo maxay aheeday wixii laga rabay ayay ka fikiraysa markisto wax dhaqaale waxay ka haysatay in yaroo subag ah ayay ka haysatay subaga xoolaha macnaha oo la gado oo kale hala yaray haysatay subagaas ay rabtay mar inay suuqa yar geyso oo si ay iskuulka wixii ay wax ku baran lahaayeen iyo dharkoodii waxooda ay ugu soo gado dhaqaale maamada intaasay lacagba ay xoolaba ka haysay aad bayna uga murugsaneed oo uga fikiraysay ciyaalka korintooda iyo maxay ahayd waxtarkooda maamadii maalin maaliyaha ka mid ah iyadoo aad u murugsan oo ilmihii waxbarashadoodii noloshoodii la fikirayso 4 cunug ayaa cunugii ilmaha ugu yaraa ayuu maalin wuxuu u yimaado hooyadiis oo maxay ahayd meel fadhido iska duducaysanayso oo ilaahay barinayso ilaahu ilmaha waxaan ku koriyo ilaahu adigaan gargaar ku weydiisanaya wiilkeedii yaraa ayaa ilmaha u yaraa ayaa masaajid intuu ku soo tukaday ayuu hooyadii u yimaade wuxuu dhahay hooyoy maxay ahayd maanta masaajidkan ku soo tukaday hooyoy waan kuu soo duceynay maanta si aad wax u hesho lacag dhaqaale aad wax noogu qabato ayaan hooyoy maanta waan kuu soo duceey u dhahay masaajid dhexdiisaan kaaga soo duceey maamadii way faraxday cunugeedii ay habsiisay way dhudhunkatay waxay tiri insha allahu ilaahay ha ka aqbalo ayay tiri cunugii yaraa markuu saa hooyadii ku dhahay kadibna maxay ahayd maamadii waxay tiri insha allah soo ducee bay tiri hooyoy subaga yar baan rabaa inaan suuqa u qaado oon soo gadaan rabaayo aad wax iyo dharna oonan kaa farxiyaan rabaa si aad iskuulkaada wixii aad ku baranaysa alaabtaa ku aad laheyd iyo dharkaada iyo noloshaada inaan wax wanaagsan subagan ku soo gado soo duceeyay tiri waana kaa farxin doonaa bay tiri insha allahu cunugii yar haye uu dhahay maamadii subagii ay qaaday magaaladay la aaday ayadoo subagii madaxa ku wado weel buu ugu jiray madaxa ku qaaday oo magaaladii tagtay oo wixii inay iibisa rabto ayaa nin ka hor imaaday wuxuu yiri maama subag ma wada haabay tiraaheen wuxuu dhahay subaga wada itus bal horta aan fiiriyo inuu subag fiican yaho maamadii iyadoo subagii madaxa ka soo dajinayso ayaa wadaadkii maryihiisa subagii wax yar dhinac uga daatay ninkii uu ku dhago maamadu ku xanaaqabo wuxuu yiri hadda ilaa waa inaad cudhe dhar ii gadanaya dharkeed iga halaysa ood iga wasaqaysa hadda dhar ii gad ku dhahay wuu ku dhagay maamadii ninkii markaasay maamadii way dhaxtay meel ay wax ka keentay garan waas lacagna ma haysato intii reedo subagay ilmihii rabtay inay u gadatana ninkii fiirinay markuu subagay hal yar ku daateen wuxuu dhahay dharkaad iga wasaqaysa ilaa wanaagay inaad marya ii gadaa ku dhahay maamadii way dhaxtay way dhaxtay way calaacash danteeday u sheegatay tabarteeday u sheegtay warninoo waxay tiri ilaahay dartii ugu cafi war walaalow intan yarba ilmo baahan baa iskale war ilmaan wax ugu gadira war ilmaan aabood agoone ninkii nag islaanta inuu ka hor leexdo diiday ilaa wuxuu dhahay labiskayga waad iga halaysa waa inaad suuqa dhar iga gato islaanta calaacalkeeda iyo oohinteeda iyadoo ooynays oo calaacalays wiil yaroo kuray ee maqlo oo meesha maray wuu ku soo leexd wuxuu dhahay eedu maxaa la ooynaysaa
way u sheegatay waxay tiri eedoy dhibkana ay haasto wiilkii yaraa wuxuu dha warnin uu soo nin islaami matid islaanta waabad maqlays way ku dan sheegatee maryahaada gurigaada taga or dhaqo wuxuu yiri islaanta ka fuq mayuu dhawe ilaa waa in dhar la ii gado ani maryahaygaa liga halay bas meeqaa waayu dheh marka islaanta uu ku dhagayo oo leeyahay maryaha hadda ii gad uu leeyahayna maryaha lacagtooda meeqaa way wuxuu dheh 1 dirham u dheh maamadna 1 dirham ma baha isafo waxay tira 1 dirham subagan haddaan gadana ilmahaygaa waxa uu gadi rabe adiga ku meheli kar idaaf adi wiilkii yaraa wuxuu dheh meeqaa waryaa islaanta meeqaa ka rabtaa markaasuu wuxuu dheh 1 dirham baa maryahaygan ay joogaan buu dheh markaasuu wuxuu dheh wiilkii marka muslineed oo u naxay maamadii 1 dirham waa kanuu dheh anaa hadda ku siinaayo ee iradda ka buxuu dheh qabso 1 dirham qabso waa kana qaado anaa hadda ku siiyu dheh wiilkii kala caawinaayo maamada macnaha markii 1 dirham ninkii gacanta loo geli xal uu yiri maryahan aad qabtana noo soo fur wiilkii wuxuu dheh maryahan aad qabtana hadda kan 1 dirham aad ku gadanayso maryahaada cusub wuxuu yiri maryaha aad qabta anaga dhaqanayna noo soo furaa lagu dhahay wanahay ninkii cirka ku soo dumay wuxuu yiri ma soo qadaxdiisa isku qaabinayo ma soo qadaxdiisa maryaha isaga furaayo war ceeb way waxaas idaafa waxa ka sii ceeb badan buu yiri oo ka sii naxdin badan buu yiri islaan masaakiin waxba haysan markaad tiraahay maxay aheeday markaad hadda maxay aheeday markaad tiraahay maxay aheeday waan waxay aheeday markaad hadda islaanta hadda iigad wax markaasuu ninkii wuxuu dhahay maryahan miina furaaye lacagti baan soo celinayaa haddaan soo celinayana weliba raaligelin baan bixinayaa u raaligelintana waa 1 kaloo dirham ma garanaysa 1 raaligelin ah iyo 1kii adi ay siisaninow baan soo celiniye lacagna ma kaa qaadanaye 2 kun oo ama ka dhigayaaye dad badanna meesha way ku soo urureen ya dad badanaa marka buuqi maqleen oo soo yaaceen oo soo imaadeen meesha markii oo lacagti lagu wada gorgortamaayo ma garanaysa oo gurmad badan baa imaad adi ninkii wuxuu yiri ku raaligelina waan bixinaya 1kii aad isiisana waan soo celinayo maryahaygana ma furay bal marka uu niicafiyay dhaaf waa laga qaaday lacagti wiilkii wuu ka qaaday marka ninkii wuu iska tagay ma ogtahay islaantii 2 kun oo dirham yaa la sii maamadii subaga madax ku wareed 2 kun baa la siiyay ma garanaysaa marka asxaabay meesha maxaa ka aragtiin qofka muslimka ah hadday dhibaato la soo daristo ducada ilaahay wuu aqbalaa ilaahay wuu kuu jeedaa markaad daacato ay kaa jajaban tahay iyo markaad jeesjeesanayso oo macnaha diragta kaa badatay intaba ilaahay waa qafuur raxiim ilaahay waa mid naxariis badan ilaahay wuxuu yiraahday horta isku naxariista aan ina naxariista ilaahayna wuxuu yiri markasta ibari oo gacmaha kor u taaga si aan inagu naxariisto dheh ilaahay maskiinka ugu hooseeyo iyo kan taajirka ilaahay uurkooda qulubtooda wala socdaa kulli kan wax bixinayo warka kan wax bixinaynin warka meesha wax ka siinayna adi ma garanaysid meelaad filanaynin wax laga keenayo ilaahay meel buu dhoobada kaaga qaadayo ma garanaysan asxaabay marka maamadii farxad 2 kun oo dirham oo ay soo geedin ay wali gadin ayuu ilaahay cirka uga keen waxaana ilaahay u aqbalay cunugii yaraayo agoonka ahayo ilmaheeda ugu yara oo masaajidka intuu ku soo tukada dhahooyoy inaad wax noo soo hesho maanta waan soo duceey cunugii ducadiisa ilaahay aqbalay islaantii suuqi bay tagtay wiilkii baa horta gaariga ku qaaday wiilkii oo lacagta saas ilaahay ugu soo darbaaxay wiilkii baa gaarigiisa ku qaaday oo magaalada gurigeeda islaantii geeyay islaantii ilmaheeda shopping way u gadatay wixii iskuulka ka rabeen wixii laga rabo way u gadgadatay lacagtii ugu gadgadatay subageedina sidii u sii qaadatay marka maxay ahaday sidii way ilmaheeda uga farxisay ugu tagtay wiilkii yaraa way u yeertay waxay tiri ilaahay ducadaada ugu aqbalay xoolaana ilaahay baana soo siiyay tiri ducadaada ilaahay ugu aqbalay ducada dadka aan dambiga lahayn ma garad ilaahay ducadooda ugu aqbalaa siba saqiiraha oo kale ilmaha saqiiraha oo kale ilaahay ducadooda ugu aqbalaa ma garanaysa anu waxaan dhihi lahaa dadka muslimka Soomaalida aan ka dhalanay iyo muslimiinta aan ka dhalanay horta ilmihiina tarbiya wanaagsan bara marka uu hore wixii daardaarana wanaaga way fiicanta in la isku wacyi geliyo ilmihiina marka hore tarbiya bara waxaad ku tarbiyaysiin akhlaaqta islaamka diinta islaamka oo macaanka badan
إلهي كي الرحمن كهاين أبوري إنو أساق الدل ينلول نوهايو إنو إلهي نبض يعافماد نوهايو إنو إلهي إسراقات بحيو وحكستا إنو الدعاء إلهي لغو هرمرو إنو الدعاء إلهي هرمر وين لغو قارو أولاد التربية وناكسن هلا برو ما قرأت إلما هذا يركا دا دعاء برتو أود إلهي برين برتو أو ماشي وحكا إيمانا إلهي هذا وشاكتو إلما هذا يركا وحا أركيسا ما يأوكي وارد كودا مركو مركسان ياي أو وحبا أوهاينين عيالك أيوه ويكور خبان ويأوكيهين والله وبالله وطالله وحا أركيسا إلما يرير أو قرقودا وحي كتر وحكستا ويأوكي ما قرانيسا حتى تركا ورن هايو يتوكو أو إلهي نوبر مانتا وحان إنا قبل لها ساس إساس إنو إلهي كسيو cunuga yar oo saqiirka haduu ilaahay baryo wuu helayaa waxaas uu barinayo waay ayagu waa saqiir dambi malaha ilmaha yar yar ilaahay ducooyinkooda ugu aqbalaya ma garanaysa ilmihiina tarbiya wanaagsan bara sida loo duceysto sida loo cibaadeysto sida ilaahay loo bari wax kasta bara ilmaha fahansiya Soomaaliy walaalahayga qaaligow ani taladayda wata marka maamadii farxadeed halkaas ay ka ciyaartay qisada waa qiso cajiib oo aad iyo aad macaan badan waa ka helay walaalahey waxaan jeclahay inaad share garaysaan oo page-kiina Facebook-yada aad dhigtaan Facebook-yada oo meeshii aad looga arko waa inaad baraha bulshada ku dhex tuurtaan page-kan oo share gareyn weyn ku qabataan oo subscribe iyo like iyo waxyaalaha aad ku dartaan weeye si ay asxaabtu warta hataa committee waa laga bixiyaa asxaabta committee-yada way arkaan marka walaalayaalow waxaan ila leeyahay walaalahey ha baraarugaan Soomaali gacmaha is qabsato tarbiyo wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan ha lagu socdo ma garanaysaa ana walkaas wax inaga sheegay halkaasay ayaan wax inaga sheegay asxaabay qiso kale oo dhacday ayaa aniga oo gabar ahaa ayaan inaga sheekay inaan daba dhiga rabo qisadaas war page kalaan inagu soo duubi taasay page kalaan inagu soo duubaya ma garanaysa wallahi oo billahi oo talay taas page kalaan inaga soo dhigi tanay inta hayga ekaato taasay ana inaga soo fikiri doon mar kale oo qiso waxa way ani iyo maama hadda ka horna dhaxmarto waaye waan rabaa inaan ina sheego yani qof walaalo ay aad u qiireysan ba habeen aan la kulme qoftina anigii ay ugu horeysaaba ilaahay wixii rabtay iga kaasiye waaba siiye ma garanaysa marka anina waxaan isbixiye siyaago ma rabi laakiin qofka muslimka ah markuu ilaahay ku ogyahay wuxuu ilaahay ku ogyahay alxaqiiqa qofka warhaayada ka hor imaanayo oo ku oga ka hor imaanayo marka qofkaas marka inuu maaragtay marka walaalay share gareeya subscribe meesha marka la hanoo noqotaan hadda sheeg laha hadda intaas iga ahaato marka ugu ku ka walaalayaal waa ka baxaya ma sha Allah